Sheekh Khalifa weeyo aan runaha horta marka hore waxaan salaamayaa dhamaanba bulshada Soomaal kasta oo ay ku nool yihiin bulshooyinka Soomaaliyeed kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda dawladda waxa la yiraahdaa matqaana waajibaadkeeda ay gudan weyday markii hadda tusaale ahaan waxa loo soo qaataa inta badan inay amaankii wax ka qaban weyday sida la ogayahayna matqaana sanadkii hadda aan soo dhaafay intay dawladda ay jirtay amaanka magaalada Xamar wax badan baa iska bedelay waxa lagu garan karaa dadka matqaana qurbo joogta meesha ku laabanayso iyo diyaaradaha matqaana caalamiga sida Turkish Airlines oo meeshii shaqo ka bilowday marka ma isdhihi kartaa in mataqaana waxa u baahnay dawladda la siiyo waqti ku filan si ay mataqaana ay isbedel weyn oo midka hadda ay qabatay mid ka shisheeya ay maar soo bandhigi lahayd horta su'aashaasi waa su'aal wanaagsan anigu horta xoogahoo yar oo aan isleeyahay dhaliil ah baa jirto xagga dawladda shaqadii ay qaban lahayd oo dhan in meel hal mal kaliya hal topic in laga wada goosho way culus tahay dawladda shaqooyinkeedii ABCD uma kala saarin ama se plan B iyo plan A iyo looma kala saarin wixiiba hal mar in loo wada goosho oo federaalkiina la dhiso oo goboladii maamullo loo soo sameeyo in al-shabaabkii lala dagaalamo in arrimo kale oo adan garanaynin oo macnaha overnight-ka ay dawladda iyo golaha sharci dejintu ay ku buuqsan yihiin oo kala ay iska jiraan oo wax aan anagu fahmi karina xoogahoo yar waxaad malaysaa dawladda tan in lala fadhiistay oo wax aan anagu ogeyn oo aan ka warheenin oo bulshadu ayna ka warheenin oo kale oo macnaha dawladda la fadhiisatay inay jiraan baan anigu u maleynayaa oo xoogahoo afaara macnaha external ah oo de macnaha way caalamka dawladdan dawlad gacanta lagu hayo weeyo dawlad macnaha Soomaalidu ay dooratay ma aha oo xaqiiqduna taas weeyo waan wada ognahay laakiin sayadoo macnaha nala ku qasbayo oo nala ku magaranaysa inay chuchuubayo ayaa waxa la samaysta dawladdii la sameeyayna noocan ay noqotay marka noociina qoladii wixiiba markii horeba nagu chuchuubtay ayinba dawladdiina ku chuchuubaysa waxa ay shaqeynaysa waxay tahay anigu wax nooca oo baa meeshii ka dhex muuqda laakiin xaqiiqda dhabta haday tahay in wax xogo yar boorka la iska jafo
dawladdu wixii la rabay ma ayna qabanina inay hadda ay noqoto in dhibaatada la sii wado oo la sii wado uma aha waa in baasha marxaladeedii la ogaado dawladdu dhaliil way lahayd dhaliishana meel dhaliisha laga dhigi karo ra'iisul wasaaraha kaligii lagama dhigi karo madaxweynahana kaligii lagama dhigi karo waxaani waa team wada shaqeeyo oo isku daboolan oo golaha fulinta iyo golaha sharci dejinta ah team kaasoo dhan baa ceebta wada leh hal qof oo ceeb yeelanaya ma jiro okay abwaan marka adoo halka markaa maraysid waxaa tiri mataqaanaa waxaan waa dalad dhan oo waxaa isugu yimid wasiiradoo dhan baa waxaa ku jira wasaaradihii oo dhan marka ma kula tahay in mataqaanaa ay wanaagsanaan lahayd in mataqaanaa wax laga bedelo keliya wasaaradii ay mataqaanaa wax ka qaldanaan sida haddana ognahay sanadkii hadda wasaaradda mataqaanaa waxbarashada ama arrimaha bulshada waxaa barnaamij oo maxaa la go back to school la sameeyay oo ilaa iyo 1 milyan oo arday baa school aadi sanadkan midda kale wasaaradda mataqaanaa warfaafinta Somali Airlines bay dib u soo celisay telefishinka qaranka uu shaqeynaya idaacadda radio Muqdisho dib shaqo u bilowday marka ma kula ahaan lahayd in mataqaanaa wasaaradaha sida ammaanka oo kale in wasaaradda kaliya isku shaandeen lagu sameeyo ee dawladda oo dhan aan la ridin horta sida aad iyo aad bay ayaad u mahadsantahay horta sida aad u qaada dhigtay su'aashan waa su'aal aad u wanaagsan weey horta waxa wanaagsaneed meesha in shaandeen la sameeyo dhab ah oo loo fadhiistay sidaan qabana dawladahan markii shaandeenta la sameynayo ra'iisul wasaaruhu inuu asagu uu macnaha wuxuu doono iska sameeyo meesha ma jirtaan u maleenayaa waxa jira meesha team wada shaqeynaya weey haddii waxa si wada shaqeynayo wada jira aan loo soo saarin marka hore oo la sameynayaba in khilaafaad ka dhici doono waa la isla og yahay marka waxaa la rabay dawladda tan in la shaandeeyo iyadoo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo ciddii kale oo ila maxtir waxa jirto baarlamaankii naftiisa waxay leeyihiin haddaan laga wada guddiga nabadgelyada guddiga dejinta wax guddiyaa jira guddiyadaas baarlamaankii oo dhan baaba u kala qaybsanba shaqooyinkii golaha fulinta guddi bay leeyihiin baarlamaanka ka socda marka waxa weeye oo arrintii control in la qabtay wixii in kale marka wixii waa team wada shaqeeya waxaa la rabay in shaandeen la sameeyo inta la wada fadhiisto haddaana waxaan la isla qaadaa dhigin oo la isla wada arkin waxba lama dhirin kara dadkan dhibaato fara badan waa zero block hoos meel hoose ayaa waxa laga bilaabay wada tashi bayna ku wada wanaagsan waxaas oo kale in la eega awoodayda iyo anigu waxaan leeyahay iyo anigu kaas waxaas uu leeyahay hadda sheekadii ma marayso hadda sheekada waxa weeye in la yiraahdo war maxaan qabanaa maxaan wanaagsan wixii la soo saaro wax la isla wada og yahay hadday noqdaan dhibaato arinta kama imaanayso sidaas aniga ilaahay Soomaalidu ma mataqaanaa wixii maanta iyo shalay intii mataqaanaa dawladda la riday waxay magac hayeen mataqaanaa in ra'iisul wasaaraha kaliya loo dan leeyahay oo la doonayo mataqaanaa haddii ra'iisul wasaaraha dawladdan ay dhacdo ra'iisul wasaaraha kaliya inuu baxo oo dawladda wasiiradan sidooda lagu soo celiyo oo waxba mataqaanaa in wasiirada la kordhiyo balse kuwa hadda shaqeynaa sidooda lagu soo celiyo marka arrintaas suurtagal ma kula tahay adiga horta anigu sidaan filayo dhibaatadani ra'iisul wasaaraha kaliya ma aha ra'iisul wasaaraha kaliya ma shaqeeyo ra'iisul wasaaruhu waa wasiirkii wasiirada weeye xafiis buu fadhiyaa hawlgal kasta iyo wax kasta oo la rabo in laga shaqeeyo program kasta oo in laga shaqeeyo la rabo waa program qorsheynta qaranka la soo mariyay kadibna la wada og yahay in barnaamijka la fuliyo waxa la isla ogeeyna ra'iisul wasaaruhu ma fulin karin ba horta dambi gaar oo ra'iisul wasaaruhu leeyahay ma jirto anigu sidaan qabo sidaas ay ku caddahay laakiin haddii khilaafba uu dhacay oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dhaxdooda khilaafba hadduu ka dhacay wada shaqeyntii meesha iska yareedo meesha tiilayna meesha way ka baxaysaa sidaan qaban anigu ra'iisul wasaaruhu ninkii ugu wanaagsanaa oo ugu dulqaadka badnaa oo haddaan laga weeyay la shaqeynba hadday tahay ayuu ahaa khilaafkiisu saa uma badneen oo wax badan kama inaan maqlaynin muddo badan intii hadda wada shaqeynayeen waxaan wax hal mar uu iska soo burqay oo hal mar iska soo dhacay waa hadeerto laakiin sidaan anigu aan dhahayo oo kula talin lahaa dawladda waxa weeyo wax kasta oo la sameynayo in la isla fadhiisto ilaan baarlamaankiina guddiyay ka kooban yihiin baarlamaanihii dawladda gulihii fulintana wuu jiraa madaxweynihii wuu joogaa si wada jir wax la isla qaadaa dhigay oo la og yahay waxaas iyada jihaday u socdaan
jihal isla og yahay oo meel cidba ayna ka wareynay inuu nimba meeshu doono wax ka fushado dhibaatada waxa keenaya taas weeye si wada tashi ah wax la isla og yahay dawladdu waa hal tiimka inuu wada shaqeeyo ayaan kula talin lahaa. okay su'aasha ugu dambaysa adiga waxa tahay nin abwaan Soomaaliyeed maxaad kula talin lahayd dadka ma taqaana dawladda xafiisyada sare fadhiya sida baarlamaanka kala meesha ugu awoodda badan oo ma taqaana iyaga ay ma taqaana talada ka goodaa marka maxaad kula talin lahayd maxaad u maleysaa inuu xalka ku jiro horta xalka ilaahay baa og meel uu ku jiro laakiin se ilaahay de wuxuu nayiri allana hala tala saarto dadkuna waa inay aqligoodu shaqeeyo weeyo ilaahayna la tala saarto meesha arrinta taala waxa weeye gudiyada laamaha gudiyada ee kala duwan ee baarlamaanka uu leeyahay oo hawlaha kala duwan iyo barnaamijyada kala duwan ee dawladdu ay leedahay macnaha dadka loo diyaariyo gudiyada inay kormeer sameeyaan shaqadii loo idmaday inay ka warhayaan oo habeen iyo maalin ayna seexan dadka meesha yaala cidlaada oo cidna u maqnaan ceelna uusan u qodneen ayay maamul u hayaan oo dawlad baan u nahay ay yidhaheen waxaa la rabaa habeen iyo maalin inayna seexan oo si wada jira ay u wada shaqeeyaan dad communication lahoo dhaxdoodana iska warhaya saacad kasta iyo haddaan lagu leeyahay daqiiqada kasta in dawladdu wada shaqayso dad soo taagan baa maanta dhibaatada dadka ka saari kara laakiin dad qaarkood hadday dad iska baashaalayaan oo wixii dadkii baad u malaynaysan inayna waxba ka maqneen sidaas u malayn maayo in dhibaatada dadka looga saari karo marka waxaan anigu kula talin lahaa dawladda iyo inay wada shaqeeyaan oo golaha gudiyada macnaha hogaamada meelaha ilaan baarlamaanku wuxuu ka kooban yahay gudiyadaas inay habeen iyo maalinba shaqadii loo idmaday ay ka warhayaan oo ay cagta ku hayaan hadday tahay kuwa ciidamada hadday tahay kuwa dibudejinta hadday tahay haddaan lagu leeyahay kuwa arrimaha bulshada hadday tahay kuwa caafimaadka hadday tahay kuwa waxbarashada macnaha in dadkaasi ay habeen iyo maalinba goobaha ay shuqulka ku leeyihiin dhex taagan yihiin oo ay ka warhayaan oo aanu aragno dad ayagu dhex socda meelihii loo idmaday inay u shaqeeyaan bulshada tana dib loogu soo celiya macnaha xasiloonideeda ayaan kula talin lahaa.